Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم وأنا جواه إنجنير عبد الفتاح محمد علي وأنا سلامي يا دماء waxaan rabaa inaan dib u bilaabo casharadii IT-ga ahaa ee aan ballan qaaday balse ka hor waxaan rabaa inaan wax yar oo aan wacyigelin aan ka sameeyo dhanka internetka iyo qatartiisa waxaa muddooyinkii dambe aad soo kordhayay dadyo ka cabanaya in ciwaankoodii Facebook laga jabsaday isla markaana awood u yeelan waayay inay maamulaan laguna soo boostigareeyay waxyaalo anshax xun oo aysan iyagu raali ka ahayn halka dadka friendiska la ah qofkaana ay u maleynayaan in isagu uu soo boostigareeyay waxyaalaha kadibna markii ay isku dayeen in ciwaankoodii ay dib u hantaan oo ay isku dayeen inay maraan procedure-kii ahaa numberkii ama recovery ay ku sameeyeen ciwaankii ay dib u helaan emailkii lambarkii ugu sameysnaana laga bedelay oo ay totally ay access dhan u yeelan waayeen inay wax ka qabtaan su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay sidee ugu suurta gashay in emailkaaga access gareeyo isla markaana uu awoodii dhan ka qaado oo aad ku access garan lahayd emailkaaga haddii aad isku dayday in aad ciwaankaaga dib u soo ceshatana aad awoodi weyday maadaama ciwaankaaga passwordkii aad ku access garan lahaydna laga bedelay lambarkiina laga bedelay isla markaana emailkiina laga bedeshay oo qofkii kale totally uu hantiyay ciwaankaaga taasi jawaabteeda aad ay u fududahay waxaana sabab u ah dadka isticmaalaya ciwaanka dhowr shayba sabab way ugu noqon kartaa marka koowaad dadka inta badan research kuma sameeyaan oo ay ma ogaadaan sababta suurtagalka ku noqon karta in ciwaankoodii Facebook ahaa laga jabsado taasina waxa ay keenaysaa in waxyaalo badan uusan taxadar ka qabin oo uu ku dhaqaaqo iyadoo markii dambana keenta in ciwaankiisii la wareego way dhici kartaa in dad fara badan aysan awood u lahayn inay aqriyaan luqadda Englishka taasoo suurtagal ka dhigta in qofkii uu fahmi waayo waxyaabaha digniinaha ah ee luqadda Englishka ku qoran ee Facebook-ga in laga jabsado aad ka taxadari lahayd qofkii fahmi lahaa mana dhacdo inta badan dad luqadda Soomaaliga ku fasira way yartahay saas daraadeed waa la dhihi karaa waa sidaas sababta aan videogan aan kugu soo duubay adiga si aad u noqoto qof safe ah oo ka taxadar qaba arimahan aan kor ku soo sheegay dhamayso videogan waxa hubaal ah in aad ka badbaadi doonto alla idinkii waxyaalaha aad loo baahan yahay inaad ka taxadarto waxa kamid ah in aad ciwaankaaga aadan ka dhigan passwordkiisa password aad simple u ah oo fudud taasoo keenaysa in qof uu gas ku sameeyo ama uu gas gareeyo inaadan ciwaankaaga passwordkiisa aadan ka dhigan lambarka taleefankaaga in aad ka ilaaliso passwordkaaga inuu kamid ahaado magacaaga iyo waxyaalaha username-ka aad Facebook-ga adigu aad u isticmaashay waxyaabaha aad kaga taxadiri karto waxa kamid ah waxaa jiro waxa la yiraahdo phishing link ama link of phishing ah oo ay isticmaalaan ragga hackeriska ah kaasoo ay ku sameynayaan wax la yiraahdo social engineering oo ay ku soo bedelayaan linkigaas ujeedkii loogu talagalay maahan ujeed kale sida news warar oo kale markaad click siiso waxa uu ku geenayaa page fake ah oo u eg midka Facebook-ga oo raba username password inaad geliso markaad geliso username passwordna waxa aad ku dhamaanaysaa inaad wixii aad daba socotayna aad weyso qofka hackerkan waxa uu suurta gashay inuu helo username passwordkii aad adigu Facebook-ga kaga jirtay isla markaana daqiiqado yar gudahooda laga saaro ciwaankaagii oo aad dib u gali weydo laguna soo boostigareeyo waxyaalo anshax xun iyagoo ujeedooyin dhowraba kale ha noqoto inay rabaan inay baad ka qaataan oo inta badan dhacday oo aniguba indhahayga aan ku arkay qof la weydiisanayo baad iyo in maxaan ku raahdaa ay ka tahay fan oo ay rabaan inay dad ciwaankoodii ay access gareeyaan oo ay jabsadaan si ay cilmigoodii aqoontoodii ay u sameeyaan oo penetration testing adiga ay kugu sameeyaan hadiiba ay kugu dhacdo in ciwaankaagii laga saaro oo laga log out gareeyo waxyaaba ugu horeeya aad sameynayso waxa kamid ah inaad markiiba aad isku daydo inaad forget password tiraahdo oo lambarkaagii inta aan laga bedelin aad ka gaadhay ciwaanka
haddii aad ka maqnayd xilligii ciwaankaaga la jabsanayay oo aad dib ka aragto oo aad accessna u yeelan weydo inaad gasho oo aad ka daba tagto ciwaankaaga waxaa kuu furan waddo ah in aad report garayso oo ay friendskaagii dadkii close-ka ah oo kuugu dhowaa in ay intay dhex galaan profilekaaga kadibna ay report ku sameeyaan oo ay report gareeyaan ciwaankaaga oo facebooka u sheegaan in laga hagareeyay dad close friend ah oo aad ku sheekaysataan inta badan chattingka facebooka taas oo ay ka badbaadin karta in waqti dheer uu sii haysto ama uu sii maamulo ciwaankaaga qofkii hackerka ah ee ka jabsaday waxyaabaha kale la rabo inaad ka taxadartaan oo aan arkay in dadka Soomaalida inta badan aysan taxadar ka qabin waxa kamid ah applicationada faraha badan ee facebooka aan iraahday ku jira Play Store-ka intooda badan waxa ku hoos duugan malicious software oo qabanaya shaqada aad interface-ka hore ka aragto maahan shaqo ka duwan marka aad ku install garayso mobile-ka waxaad arkaysaa applicationo aan loogu talagelin inay ku weydiiyaan audio inaad codka u furto inaad u furto maxaan ku raahdaa sawirada inuu access gareeyo inuu videoiska access gareeyo inaad u furto iyo in maxaan ku raahdaa faylashaadii uu access gareeyo Soomaalida inta badan luqadda Englishka ma aqrinayaan dadka intiisa badan way ka taxadar qabaan dadka qaarna waxay permission u siinayaan in application-kaas uu access u yeesho dhammaan waxyaalaha soo codsaday kadibna waxa dhacaysa in lagu hack gareeyo oo ciwaankaagii iyo datadaadii personalka ahayd ee mobile-ka kuugu jirtay oo si shakhsi ah loola baxo oo laga faa'iideysto qof kasto inaga mid ah mobile-kiisa hadii uu fiiriyo waxa laga helayaa applicationo aad iyo aad far badan oo uusan isticmaalin intooda badan oo mar qura intuu soo dejiyay uusan dib u eegin isticmaalkooda taasina waxay ku noqonaysaa qofkii in uu mobile-kiisa ku haysto malicious software oo ah software ujeedkii loogu talagalay ee game-ka oo kale aad ciyaaraysa maahan gadaashiisa background-ka uu ku samaysan yahay another malicious software oo loogu talagalay in uu xogta mobile-kaaga iyo dhaqdhaqaaqaaga la socdo dadka computerada isticmaala waxyaabaha aan uga digay waxa kamid ah software-radan ay inta badan dadku raadiyaan ee la soo karaagareeyay software-radan la soo karaagareeyay ee dadku inta badan ay aad ka u jecel yihiin inay ka dhex raadiyaan website-yadan oo cat.how oo kale waxa inta badan dhacda in ujeedada aad aragto maahan ujeedada kale ee dadka ay soo karaagareeyay ay ka leeyihiin waxaad arkaysaa software oo lacag ah oo internetka hadaad website-kiisa saxda aad tagto lacag ku weydiinaya inaad website-yada qaar cracked software kala soo dhig aad kaga hesho iyagoo diyaarsan oo waxba aan laga rabin oo la soo diyaariyay taasi ma isweydiisay ujeedada iyo hadafka uu ka leeyahay qofka waxaan sameeyay inta badan waxa dhacda inay computerkaaga loo adeegsado wax la yiraahdo backdoor attack oo ah in lagu shubo software-kaas gadaashiisna uu ka shaqeynayo software kale oo sameynaya backdoor attack waxa dhici karta in hadii computerkaaga uu ku jiro public IP address oo kale in bangiyo adduunka ku yaala iyo meelo kale in la isku dayo in attack lagu sameeyo oo ujeedadana ay tahay in computerkaaga loo adeegsado maxaan ku raahdaa attack lagu sameeyo marka ka taxadar software-rada free-ga ah ee cracked-ka ah ee la soo karaagareeyay inta badan waxay ku keeni karaan dhibaatooyin aan ahayn waxaad adigu ujeedo ee faa'iidooyinka aad ka helayso dhibaatooyin kale oo ka hoos qarsan ayaa jira laga yaabo waxa jira waxyaalo kale oo aad u fara badan waxa inta badan inaga maqan inaan wixii research ku sameeyno oo aan raadino inta aysan waxa kugu dhicin waxa fiican inaad ka taxadarto casharo fara badan oo ku saabsan arrimahaas waan soo wadaa waxaan ugu talagalay clipkan yar ma ahan cashar kaliya waa digniin aan dadka maalmahan dambe Facebook laga jabsaday soo kordhay inaan bal laba eray uga sheego ma wada sheegin waxyaalaha maaragtay laakiin inta common-ka ah ee ugu muhiimsan ee inta badan dhacda in qofka lagu hagareeyo waa inta waxaan rajeynayaa inaad research sii sameyn doonto haddii Ilaahay yiraahdo waxaanan kugu boorinayaa mar walbo inaad ahaato safe and secure oo password-kaaga uu mar walba ka koobnaado uppercase and lowercase letters xarfo iyo nambaro password walba oo dunida ah waxaas fudud in la hagareeyo laakiin how long it will take meeqa ay qaadan kartaa in password-kaaga la jabiyo oo maaragtay hacking lagu sameeyo su'aasha weydiinta waa intaas waxaa la rabaa in password-kaagu noqdo password aad u adag oo qofka hackerka aysan suurtagal ugu noqon haddii uu isticmaalayo hal computer oo kale
in uu 2 sano 3 sano 10 sano ay ku qaadan karto baasharada qaar haddii aan markaa la isticmaalayn kombiyuutar aad u waaweyn oo fara badan oo CPU fara badan oo leh load badan sameynaya aan lagu taxadirin. Anyway, keep safe and secure. Assalamu alaykum. Anigoo ah Injineer Cabditax Maxamed Cali. Tan iyo kulanti dambe waxay ku dhaafayaan sida ay nabadgelyo. Assalamu alaykum.